kalgacaylka ka wada dhaxeeyay laba gabdhood iyo wiilkan oo sheegtay inay isjecel yihiin waxa uu noqday mid saameyn ku yeeshay baraha bulshadu ku wada xiriidho oo dad badan yaab geliyay inkasta oo ay noo suurto gashay inaan la kulanno Ilwaad iyo Arwa waxay nooga warbixiyaan sida ay u dhacday laba hablood inay hal wiil mar qura jacayl u qaadaan iyo waxyaabihii sababay inay jacaylkan ku midoobaan kan Cabdikariin waxaan naqaanay muddo dhowr bilooda balse jacaylkaygu imka si wanaagsan alxamdulillah meer wanaagsan oo maray si fiican u dhisayhay waxaan leeyahay inta ka si balaad horta laba qof oo maaragtay horta geedku daaduna bilaa xidid ahayd ma jireen marka anigayna taasina saadartay saaxiibtinimada yaraantayadii waxaan ku ilaa inaan inta cimriga ka dhan aan wada noolaano isku halnina guursado ayaan ku tashanay go'aanna ku gaandhay waxa jirta tarago afarnaagod ilaahay buu baneeyay oo ma oran karna maanta aniga keligay way kow iyo labadeedana way kow haduu baahda laftarkeeda labada kale anaga u dhisano keenana hay mid ka yaabay wallahi deemka in muddo dheer aan isnaqaan marka inta dayla dhowr bilood gartay wakaas marka isku hal mar baad wada barateen mise waqti kala duwan baad wada barateen wiilka ma isku hal mar ban baraan isku hal baad adiga isla habeen inta kale mid labaad raadin la doo kale uu raadinay qasabe marka labada mar wada kursan wakaas muddo kooban ayaa ka soo wareegtay markii Cabdikariin Minnesota uu shaaciyay jacayl u qaaday fanaanada Fortune Balbalaarka laakiin se hadda waxa uu noo sheegay inuu garab taagan yahay jacaylkan baahay ee ka dhaxeeya Arwa iyo Ilwaad niyow waxa hablaan wada sheekaysan jirnay muddo dhowr bilood adigu aan u bayr fududaaday oo ma garanaysaa community raadisun ayuu ma klibkii hore ku qarxinayay marka xalay klibkii hore waa reeli labada marka waa reeli bashbaan labada bas ku naamay labada bas ku naamay labada hablood waa jeceshiin marka hablood waa jecelnay iyaguna way isku kalsoon yihiin six bay dhacday baa maleen roodid baa maraqay ugu dhacday hada ma garanaysaa laba hablood oo soo gal maxay tiri kullaba mid labaad baa guursan lahaa mid labaad buu guursan lahaa waxa jirtay waa dhaweyd oo aad sheegtay inaad jacayl u qaaday Fortune Balbalaarka labada habloodna aad tiri muddaan wada sheekaysanay saameyn inta lag ay ku keentay jacaylka hore iyo jacaylkan dambe horta waxa jirtay niyo wareysi la wareysanay Cabdiraxmaan Dayax Films ma garanaysaa Balbalaarkii klibkii hore qarxay kadib كانوا waxaan ku shaacinayeen inay xiblo badan iga duuleen labadan baa kamid ah run bay moodeen way sii daayeen waxaan ku klibkii markaan soo fiirsay bay iska soo noqdeen oo wixii reality mar inuu yahay inuu been yahay iska kala cadaanaysa markii commentary arrintan ugubka waxay la yaab ku noqotay dad badan oo siyaabo kala duwan u falaqeeyay jacaylkan laba gabdhood mar qura hal wiil u qaadeen iyagoo ku soo bandhigay baraha bulshada ku wada xidhiidho Sakariye Ilyas Jakarta Hargeysa